xilliga la soo gabagabeynayo doorashada baarlamaanka. Shirkan oo ka soconaya xarunta Villa Soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay ku go'aamiyeen jadwalka doorashada Soomaaliya. Jadwalkan ayaa qeexaya in hanaanka doorashada si rasmi ah loo gudageli doono 10ka bisha Oktoobar, iyadoo ilaa 20ka bishan Oktoobarna la soo magacaabi doono laba guddi oo doorasho heer federaal ah. 20ka ilaa 31ka Oktoobarna waxaa loo aasteeyay in la dhiso lana tababaro guddiga doorashooyinka ee ka shaqeynaya doorashada Soomaaliya. 1 bisha November ilaa 30ka bisha November ayaa waxaa la soo gabagabeyn doonaa soo xulista ergooyinka dooranaya iyo waliba goobaha ay codbixinta ka dhici doonto. Doorashada ugu horeysa ayaa dhacaysa 1 bisha December 2020 waxaana ay socon doontaa ilaa 10ka bisha December, xilligaas oo la soo gabagabeyn doono doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dalka. waxaana kadib xigi doona doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo ina dhacaysa inta u dhaxaysa 10ka ilaa 27ka December 2020. ugu dambeyn doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal ayaa dhici doonta 1 Janaayo, halka doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 8 February 2020 sida ku cad heshiiska ay gaareen dhinacyada. jadwalkan haddii sida uu yahay u hirgalo madaxweyne Farmaajo wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda federaalka ee hal maalin aan ku darsan muddo xileedkiisa marka loo eego jadwalkan, taas oo muujinaysa in meesha ka baxda damacii muddo kororsiga ee madaxweyne Farmaajo. haddaba dhinaca kale isla jadwalkan la soo saaray ayaa waxaa lagu qeexay hanaanka loo dhisayo guddiyada doorashooyinka iyo waliba sidoo kale guddiyada xalinta khilaafaadka iyo shuruudaha ee ku hoos gudban xubnaha baarlamaanka. jadwalka qaybta labaad waxay noo soo koobaya wariyeena Awas Bashir. waxaa la soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2021 ee heer federaal, kuwaas oo isugu jira dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka. guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada dadban 2021 ayaana waxa uu u dhignaa hanaanka madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashada 2021. mabaadida guud ee hanaanka xalinta khilaafaadka ee doorashada 2021 golaha wadatashiga qaranka waxa ay go'aamiyeen in doorashada 2021 la sameeyo hanaan madaxa bannaan oo lagu xalinayo khilaafaadka ka dhasha doorashada, kaas oo ku salaysan dhaqanka Soomaaliyeed iyo mabaadida caalamiga ee xuquuqda aadamiga. 2 golaha wadatashiga qaranka iyaga oo ka duulaya mabaadida caalamiga ah, ilaalinta sharafta hanaanka doorashada, dhowrista xuquuqda codbixiyayaasha iyo musharaxiinta, waxa ay laga maarmaan u arkeen in la sameeyo habraac cabasho oo waxtar leh lana fulin karo, kaas oo lagu xukmin go'aamin karo cabashada codbixiyayaasha iyo sidoo kale musharaxiinta si sharci iyo sinaan ah. qaab dhismeedka